Eritrea waa dal ku yaala bariga Afrika gaar ahaan badda cas ilaa gacanka cadmeed aagga loo yaqaano Baabul Mandeb. dalkaasi waxaa horey u tirsanaan jiray dowladda federaalka Ethiopia wuxuuna ka go'ay sanadkii 1990kii. dalka Eritrea waxaa ka taliya madaxweyne Isaias Afwerki. dalka Eritrea waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Djibouti dhinaca koonfur bari Ethiopia, dhinaca koonfureed Suudaan iyo badda cas. dalka Eritrea waa dal sabool ah, haddana intii ka dambeysay sanadkii 1990kii ayuu soo gaaray horumar weyn oo la taaban karo. doorashadii ugu horeysay oo ka dhacday Eritrea sanadku markuu ahaa 1990kii, shacabka Eritrea waxay doorteen xornimo 99%, iyadoo markaasi ay dagaalo xun dhex marayay Ethiopia iyo Eritrea oo halkaasi ay ku dhinteen dad aad u badan. siyaasadda Eritrea waa mid ku dhisan hab nabadeed, taasoo ah dad jecel midnimada Soomaaliya walow lagu eedeeyay inay taageeri jirtay kooxihii ka horjeeday joogitaanka Ethiopia kadib markii ay qabsatay Soomaaliya 2006. waxaana la sheegay inay joogeen ciidamo Eritrea u dhashay oo gaaraya ilaa 2000 askari, taasoo beenooday markii dambe. taariikhdu markay ahayd 22 Abriil 2007 ayay Eritrea ku dhawaaqday inay ka baxday urur goboleedka IGAD kadib markii shirkii arrimaha Soomaaliya looga hadlayay oo si weyn ay isugu imaan dhaafeen Ethiopia iyo Eritrea. shirkaasi oo isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku bahoobay IGAD waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxayna wasiirada u bateen marka laga reebo Eritrea inay Ethiopia ku taageeraan ciidamada ay gelisay Soomaaliya. wasiirkii warfaafinta ee Eritrea xilligaasi Cali Abdu ayaa sheegay markaasi in kabixitaanka uu yahay mid kumeel gaar ah, waxaana dareemaynaa inay mas'uuliyad darro tahay inaan qayb ka sii ahaano urur goboleed qaadanayo go'aano aan la aqbali karin marka la eego dhanka sharciga, ayuu yiri. wasiirka ayaa intaasi ku daray in ururka uu noqday mid ay ku adeegtaan xoogag shisheeye, isagoo si aan toos ahayn farta ugu muuqday dowladda Mareykanka dadaaladii xigay ee dib u soo laabashada Eritrea. sanad kadib markii Eritrea ka baxday urur goboleedka ayaa bishii Agoosto 2008 wafdi uu warkacayay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo Suudaan waxay ka codsadeen Eritrea inay dib ugu soo laabtaan bahda IGAD. wafuudda iyo xogeynta IGAD oo la socotay ayaa waxay la kulmeen madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki, waxayna kala hadleen in Eritrea ay dib ugu soo laabato go'aankii ay qaadatay. Eritrea waxay ku eedeysay xubnaha kale ee IGAD inay ku tunteen xeerka u degsan ururka oo ay taageereen in wadan uu ku duulo wadan kale oo madax banaan kana tirsan ururka. Eritrea ayaa gelitaanka Ethiopia iyo Soomaaliya ku tilmaamtay mid sharci darro ah. Eritrea xilligaasi waxay dalbatay in la bedelo xeerka u yaalay IGAD oo wafdigiisa wasiirada ay ballan qaadeen inay eegi doonaan. Ethiopia iyo Eritrea waxay xilligaasi kala taageerayeen dowladii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo mucaaradkii xaruntoodu ahayd magaalada Asmara. arrintaasi ayaa sii kala fogeysay wadamada IGAD, waxaana xilligaasi labada dal lagu eedeeyay inay si dadban uga dagaalamayeen Soomaaliya. haddaba maxay yihiin sababaha uu madaxweyne Isaias Afwerki uu ogolaan waayay in dalkiisa doorasho ay ka dhacdo? aan dib u milicsano halganka xornimo doonka Eritrea. aqoon-yahano u dundaloola siyaasadda dalka Eritrea waxay sheegeen ururka EPLF iyo EFL ee u soo halgamay xorriyadda iyo madaxbannaanida dalkaasi hadafkoodu inuu ahaa heeryada gumaysiga inay iska dulqaadaan ayna sameeyaan Eritrea oo ku dhisan dastuur iyo dimuqraadiyad. sharci yaqaan David Fishaye waxa uu sheegay shirkii labaad ee 1995 saahil lagu qabtay iyo shirkii saddexaad ee 2002 la qabtay laguna ansixiyay ahdi qarameedkii dalkaasi ujeedkiisu uu ahaa in la dhiso dowlad dastuur iyo dimuqraadiyad ku dhisan. 1998 mar uu madaxweyne Isaias Afwerki uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wuxuu ku baaqay in shacabka dalkaasi inta tabartooda ay u qayb qaataan dib u dhiska dalka iyo nidaamka dawliga ee dalka laga dhisayo si loo helo nidaam dadka oo dhan matala loona tabageliyo nidaam suurtagelinaya xisbiyada badan, maadaama nidaam uu hal xisbi oo kaliya hogaaminayo uu dalku u horseedi karin xasilooni iyo damaanad buuxda. haddaba xaaladuhu sidee isu bedeleen? shacabka Eritrea afti madax banaani ah 1993 loo qaaday Eritrea inay Ethiopia madax banaani ka qaadato waxaa xornimo u codeeyay 99%. 19 May 1993 waxaa la soo saaray bayaanka uu tirsigiisu ahaa 37 1993 oo dhigayay dastuurka dalka iyo shuruucda saxaafadda dalka in la diyaariyo islamarkaasina la dhiso dowlad ku meel gaar ah oo 4 sano ah oo dalka Eritrea maamusha. hase yeeshee sharcigaasi inuu meel maro waxaa caqabad ku noqday dagaalkii xadka ka dhex qarxay Ethiopia iyo Eritrea. 1997 baarlamaanka dalka Eritrea wuxuu ansixiyay guddiga soo diyaarinaya dastuurka dalkaasi uu yeelanayo. 1996 markii la diyaariyay sharciga saxaafadda oo qabyo ah, waxaa dalka Eritrea si aad ugu soo batay wargeysyada gaarka loo leeyahay. madaxweynaha horey ayuu ugu baaqay shacabka dalkaasi inay ka qayb qaataan arrimaha dalkooda, wuxuuna haddana amar ku bixiyay ciddii doonaysa siyaasadda dalka Eritrea inay ka qayb qaadato ay u soo mari karto oo kaliya xisbi siyaasadeed. dabeecadaha Isaias
qofka garanayo kuma uusan fikiraynin in la dhiso nidaam dooli ah oo loo dhan yahay, balse fikirkaasi waxaa qabay shakhsiyaad ka og dhawaa oo keli ah, ayuu yidhi aqoon-yahan Ilyas. 2001 waxaa la dhisay 2 guddi oo soo hindhisa sharciga doorashada iyo sharciga lagu maamulayo xisbiyada siyaasadeed, balse waxaa markiiba howlaha guddiga joojiyay oo soo fargeliyay madaxweyne Isaias Afwerki markii uu kala duwanaanshaha siyaasadeed dalkaasi u soo ifaxayna waxaa xabsiga loo taxaabay siyaasiyiin iyo suxufiyiin tiro badan. Wixii intaa ka dambeeyay doorasho cid fikir ahaan soo hadal qaaday ma jirto, sidaa ayayna doorasho ilaa ay hadda uga dhici weysay dalka Eritrea. haddaba madaxweyne Isaias Afwerki fikirkiisa muxuu isu bedelay? Madaxweyne Isaias Afwerki wuxuu aaminsan yahay doorasho inay dalka Eritrea waxba soo kordhinaynin, ayuu yiri aqoon-yahan Ilyas. 1988 muddo 4 saac waxaan Isaias kulan kula yeeshay Sahil oo rumaysan yahay inay xuduunta u tahay halkan ka dhaliyay madaxbannaanida inuu dalkaasi ka qaato Ethiopia, balse muddada aan wada hadlaynay waan ka dhaadhicin waayay in dalka doorasho ay ka dhacdo anigoo tusaalooyin badan soo hordhigay, ayuu yiri. Madaxweyne Isaias Afwerki oo uu warmeeyay wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa la weydiiyay qorshaha kuugu jirtaa inaad xilka ka degto mise si la mid ah madax badan oo Afrikaan ah inta aad ka dhimanayso kursiga waad sii haynaysaa. Waxa uu ugu jawaabay, aniga shacabka Eritrea haddii uu iga dalbado inaan kursiga ka dego oo aan si degdeg ah kursiga u baneeyo, diyaar ayaan u ahay. Doorashada waxaa iska leh shacabka, ayuu yiri. Sidoo kale madaxweynaha oo xuska sanad guuradii 17aad ee loo dabaaldegayay madaxbannaanida dalkaasi telefishinka Al Jazeera ayaa weydiiyay su'aal ah goormee dalka Eritrea doorasho ka dhacaysa. Madaxweyne Isaias Afwerki su'aasha Al Jazeera ay weydiisay waxa uu jawaabay, doorashada Mareykanka uu qabto natiijada ka soo baxda inta aan ka arkayno doorasho run ah 30 ama 40 sano ayaan sugaynaa. jawaabta uu ka bixiyay su'aasha doorashada laga weydiiyay oo muujinaysay aragtida uu Isaias doorashada ka qabo. arrimahaasi oo dhan oo isbiirsaday waxay sawir buuxda ka bixinayaan madaxweyne Isaias Afwerki inta uu talada dalkaasi hayo inaan lagu fikiri karin inay Eritrea doorasho ka dhacdo. umana malaynayo inta uu Isaias dalka xukumo inaan aragno doorasho dalkaasi ka dhacdo, ayuu yiri aqoon-yahan Isaias.